بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا إذن قد السلامي إن سلام كذب وحان ولو وضع وعيقلنتي عن بالعربي إخصاص سنة كهرتك يا حكمين تا عذرك كورونا فيروسك سيدا أدوكتهين وساميي دون دو إذن مدك لا أذكر رقبتين وحويان إن عذر كان أوصل لهين وحداوة أما طلال لوجه هرتين كرا وحنا أنت إذا لو داعية تلوين يو رقمدا ونعكسن ومهمسن كو هبون إن لا أديك سدو سقف كستعنك إنك مدأ وقيب كالنقطة قيب مهمة أو كالنقطة كهرتك يا حكمين تفافين تعذرك كورونا فيروسك dhaqanka wanaagsan oo ay muhiim tahay in aan adeegsano laba muhiimadood ayuu leeyahay mar waxa weeyaan in aan ka ilaalino ummadda kale in aan u gudbino cudurka haddii cudurka uu annaga na saameeyey muhiimadda kaleeto waxa weeye in aan annaga iska ilaalino in dadka kale ee cudurka inuu soo gudbiyaan marka waxa weeyaan waxaan soo qaaday 10 talooyin iyo 10 dhaqan wanaagsan si aan anaga maaragtay aan iskaga ilaalino guud ahaan cudurkan maaragtay coronavirus-ka ah oo sida aad ogtiin uu yahay cudur aad iyo si sahal ah ugu faafo maaragtay aadanaha dhexdiisa qodobka koobaad waxa weeye inaan markastaba gacmaha iska dhaqanaa anagoo isticmaalayna saabuun dhaqmadana waa in ay noqotaa ilaa 40 maaragtay mirar inaan iska ilaalino in aan gacnaha aan sanka ama afka ama indhaha aan ku taabano qodobka saddexaad waa inaan joojinaa salaanta badan aan dadka salaamayno ama dadka aan maaragtay habsiinayno labada aan ka dhunkanayno qodobka shanaad inaan iska ilaalino dadka hortooda inaan ku qufacno ama aan ku hindhisno haddii ay maaragtay lagama maarmaan noqoto inuu qufac naga yimaado ama hindhis ay naga timaado marna oo aan maaragtay afka gacanta ku daboolan karno marna aan isticmaali karno maaragtay facility haddii ay labadaasna dhicinne in aan xusulka laabno oo aan ku qufacno lixaad waa in aan goorti aad dadka rabtiin inaad la hadashiin waxaan idinkula talinayaa inaad maaragtay maxay ahayd aad ka fogaatiin ugu yaraan 1 mitir 1 mitir iyo 1 mitir iyo bar marka qodobka toddobaad marka aad daryeelaysid qof waayeel ah ama bukaan waxaa ku habboon inaad adeegsatid geedan maskarada ah sanka lagu xiranayo qodobka 8aad markaad adiga xanuunsan tahay oo aad shakisan tahay in aad maaragtay maxay ahayd cudurkan oo ku haleelay waxa ku dhantay inaad gurigaada joogtid ilaa 14 maalmood inaad joogtid si maaragtay loo ogaado in cudurkaas maaragtay in oo inuu yahay coronavirus-ka afarsa muhiimadda waxa weeye inaadan qaadan daawooyin sida daawooyinkan oo viruska ama daawooyinkan maaragtay looga hortago dijama bacteria oo la yiraahdo maaragtay maxay ahayd antibiyootikada midda kaleeto tan muhiimadda waxa waaye booqashada guryaha in guryaha aadna booqanin haddii aysan ahayn lagama maarmaan taa waxaan u leeyahay waxaa dhici kadho inaad adiga goortaad dadka booqanaysa guryaha ugu tegaysid in aad cudurkii aad u faafinaysid aad u geynaysid ama waxaa dhici kadho in dadka guryaha joogo in ay cudurkaas qabaan oo adag ku soo gudbi karaan marka waa muhiim
inaad maaragtay adeeraysiin booqashada guryaha la iskugu tagayo haddii lagama maarmi waayo telefoon iyo waxaas in la dirsado ayaa ku habboon. midda ugu dambayso waxa weeye inaad ka fogaatiin meelaha ay dadka ku badan yihiin ama gawaarida autobusyaashii iyo maaragtay maxay ahayd baabuurtan maaragtay laysku wada raaco maaragtay dadka qaado maadaama dad badan ay meesha soo korayaan haddii nijaamo aad awoodiin inaad maaragtay ka maarantiin waa wax wanaagsan. haddii kaleetana ku dadaala inaad sanka xiritaan ama kan ku xirta tan haddaan haysaninna inaad ku xiriteen amaamad gabdhahana maaragtay maxay ahayd sanka ku xirtaan maxay ahayd maaragtay facility ama waxay haystaan ama alaabtaas. waad mahadsantihiin aad iyo aad u mahadsantihiin. aniga samra markastaba waxaan ku dadaalaa inaan maaragtay waxyaalihii ugu dambeeyey ee cudurkan coronavirus ku saabsanaa inaan maaragtay idiin soo gudbiyo, inaan idinku wacyigeliyo, inaan idinla wadaago anigoo rajaynayo maaragtay in maaragtay talooyinkan iyo dhaqankan wanaagsan oo muhiimka ah way yar yihiin. waxa weeye 90% waa kuwa maaragtay naga badbaadi karo in cudurkan ama anaga aan gudbino ama aan noola soo gudbiyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aad iyo aad u mahadsantihiin. waa inoo mar kale mac salaama.